magacaygu waa Giita Kubusaami waxaan qaatay shahaadadayda MBA iyo dibloomada maamulka ah markii aan shaqooyin badan ka codsaday shirkado ma aanan helin wax shaqo ah dadka waxa kaliya oo ay eegayaan curyaanimadayda ee ma eegayaan kartidayda waa iska kay fogeynayaan waxayna dhahayaan dib ayaan ku soo wacaynaa waxaa lay baray Tutumani oo noqotay saaxiibtay waxa ay lahayd dawaar waxaan go'aansanay inaanu shaqaalaysiino dadka baahiyaha gaarka ah qaba meel ayaan furannay waxaanna rabnay in aanu qaadanno dadka annaga oo kala ah hawsha ayaanu galay kadib waxaan ahay qof curyaan ah oo kaliya oo gurguuran kara ninkaygana waa curyaan isna nolosha ayaan la halgamaynaa wax la'aan meel kasta oo aan shaqo raadis u aadno waana diidaan iyagoo leh waxaad tihiin dad curyaan ah shaqada xilliga saxda ahi ma tegi kartid si caadi ahna uma shaqayn kartid Giita ayaa ii sheegtay in aanu bilowno dawaar dharka lagu sameeyo dadka curyaamiinta ah shaqo ayay siinaysay waxaan ahay curyaan balse riyooyin badan ayaan leeyahay qof curyaan ah in la diido maaha sida aniga laygu diiday shaqooyin badan intii aan awoodno waxaan shaqo siinaynaa dadka curyaamiinta ah ee shaqada loo diiday curyaannimada lixaadka ma aha cillad weyn qof kasta waxa uu leeyahay karti u gaara haddii aan iska dhaadhicin lahaa inaan curyaan ahay waxba ma qabsadeen kalsooni ayaan naftayda ku qabaa